assalaamu calaykum. macquul ma tahay in qofku soo waco kadibna markuu ku soo waco markiiba aad dhimatid ama aad geeriyootid oo markiiba naftu kugu dhegto, markiiba madax dhiig kugu furmo, markiiba dhibaato kugu soo gaarto? suurtagal ma tahay? waxaa jiro cod runtii ilaa 10 qofood ka badan ay ugu soo direen whatsappka. codkaasi oo markii aan dhageystay waxaa hadlaysa gabar Soomaaliyeed oo sharaxayso in arrintaas ay dhici karto. marka waxaan isweydiiyey suurtagal ma tahay in qofku soo wacay uu ku dilo sidoo doona ha ku dilo, laakiin macquul ma tahay taleefankaada in la soo waco kadibna waxyeelo loo geysto jirkaaga iyo naftaada? waxaan isku dayay inaan la xiriiro shirkadaha isgaarsiinta ee kala duwan ee ka jira dalka Soomaaliya, waxayna ila wadaageen jawaab maangal ah. sidoo kale waxaan la xiriiray khubaro iga aqoon badan oo dhinaca tiknoolajiyada ku xeel dheer, waxayna ila wadaageen xog iyo macluumaad ku filan arrintaas oo runtii aan u baahanahay inaan maanta idinla soo wadaago. laakiin inta aan idinla wadaagin xogtaas oo dhan waxaan rabaa marka hore inaad like saartid muuqaalka si uu saaxiibo badan u gaaro, sidoo kalena la sii sheergaray saaxiibada Soomaaliya. taleefankaasaan idiin soo diray walaalayaalow, lambarkaas waa laga shakiya ha qabanina, qof kasta yuusan qabanin. lambarkaas waa lambar khatar ah. hadda gobolka Gada maanta 5 qof baa hadda saacad ka hor nafta ka baxday. dhagtu dhiig kasii dayna halow markuu dhahalayo qofka maskaxda qarxayso wuxuu ma garanayna, bal lambarkaas la iska ilaaliyo. wakaas wasaak waa la ii soo diray dad aan garanayo oo waliba familkayga ku dhintay, marka iska ilaaliya lambarkaas aan la qabanin. ogaada lambarkaas Soomaaliya dhan buu soo kale Soomaaliya lagu leenahay waa wax nuclear ku xiran yahay balaayaha la yiri. marka lambarkaas la iska jiro insha Allah, qof kastana u sii dira, dadkoo dhan uga diga. marka ogaada wadan iska bililaqo iska seel waay waxa wixii la doonaa lagu soo xirtay. marka bal insha Allah hadda tan waana lagu dayahay, bal xaaladaas ha lala socdo. lambarkaas aan la qabanin. qof kasta oo wadanka joogana ya maxaa ku leeyahay qofka ugu yar oo saaka aan wacay wuxuu ku dhahay 3 jeer buu lambarkaan soo wacay. lambar la yaqaanana ma aha, meel uu ka tirsan yahay lama yaqaan, waana la baaray. waa lambar meel balaayo ka yimid. marka insha Allah lambarkaas la iska ilaaliyo. qofku soo waco lambarka telefoonka iska fiir, lambarkaas ha qaban. waayahay aad baad u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa inaad codka ila fahanteen oo in badan oo idin kamid ah codkaasi laga yaabo inay suurtagal tahay whatsapp in loogu soo diray, sidoo kale laga yaabo inay ku arkeen baraha bulshada. su-aasha muhiimka ah ee aan isweydiin kartay marka waxay tahay suurtagal ma tahay qof aan kula joogin physical ahaan oo wadan kala jooga in uu naftaada waxyeeleeyo ama jirkaada waxyeelo u geysto? suurtagal ma tahay? mowduucaas waxaan rabaa inaan saaxiibayaal idinka shaafiyo. ilaa hadda adduunka heerka la joogo tiknoolajiyada waxaa suurtagal ah in dhibaatooyin kala duwan lagu geysto. dhibaatooyinkaas waxay isugu jiraan in telefoonkaada maamulkiisa lala wareego, in kombiyuutarkaada maamulkiisa lala wareego, iyo sidoo kale documents iyo faylal muhiim ah intii lagala baxo mobilekaada kadibna caagajugleen iyo dhibaato lagugu geysto. waxyaabahaas oo dhanna way jiraan siyaabo looga hortago. waxaana jira muuqaal kooban oo arrintaas sharaxayo oo insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda aan soo deyn doono. laakiin waxaan rabaa inaan isla fahamno suurtagal ma tahay arrintan hadda aadka loo hadalhayo inay dhacdo, in lagu soo waco kadibna dhibaato lagu geysto ama aad dhimatid oo madax dhiig kugu furmo ama dhibaato kale ku soo gaarto? suurtagal ma tahay? runtii arrintaasi dabcan waxaan isku dayay inaan la xiriiro shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta. dhowr shirkadood aan la xiriiray. waxaan la xiriiray dad kale oo khubaro ah oo shirkadahaas ka shaqeeyo, sidoo kale waxaan la xiriiray dadka xeel dheer arrimaha tiknoolajiyada. dhammaantood waxay cod mid ah ay isku raaceen in arrintaasi ayna marna suurtagal ahayn. sida shaashada kaaga muuqato waxaan daqiiqado kooban la hadlay xafiiska qaybta customer care-ka ee mid kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ee wadanka Soomaaliya ka jiro. waxaana weydiiyey in ay suurtagal tahay in dhibaato la isoo gaarsiiyo haddii aan ka jawaabo telefoon isoo wacayo. hadda bal ila fiiri in yar. telefoonka sidaan oo kale ay ku soo wacay, waa ujeeda Soomaaliya shaashada sidaan ay telefoon ku soo wacay kadibna waad ka qabatay kadibna waad dhimanaysaa. waxaasi wax suurtagal ah marna ma ahan. wuxuu runtii customer care-ka ama qaybta adeega macaamiisha qofkii joogay uu igu jawaabay qof dhalinyaro ayaa tahay sida iga muuqato codkaaga. marka uma maleeynin qofka dhalinyarada ah in uu ku kadsoomi karo ama laga dhaadhacsin karo waxyaabahaas. marka wuxuu afcad igu yiri suurtagal ma ahan arrintaas. dhowr qofood oo kala duwan ayaan isu weydiiyay ilaa maanta. runtiina waxaasi wax suurtagal ma ahan, wax macquulna ma ahan, wax dhici karana ma ahan. laakiin markii baaritaan la sameeyay waxaa la ogaaday telefoonkaasi in laga leeyahay wadanka Georgia. hadda shaashada waxaa kaaga muuqato furaha wadanka Georgia. marka dibadda la wacayo wadankaas country code-kiisa ayaad uga jeedaa shaashada. marka wadankaas ayaa numberka laga leeyahay. numberka dadka ay sheegayaan waa sidaan. sidoo kale waxaa jiri kara nambaro kala duwan in la faafiyo oo dadka ay sheegaan nambaro kala duwan oo wadamo kale laga leeyahay. laakiin muhiimadda aan raba inaan ku sheegaa waxay tahay muuqaalkan kooban maanta sheekadaasi waa khiyaali, wax ka jiraan ma jiraan, hana ka walwalin. runtii dadka qaarkoodna waxay aad walaac uga muujinayeen, weliba dadka qaarkood oo maaragtay arrimaha tiknoolajiyada aan aad ugu fiicnayn
in arrintaasi waxyeelo nafsi ay kasoo gaarto dad badan aan runtii caadi isoo weydiiyey walaalow telefoonkaas hadduu isoo waco macquul ma tahay inuu dhibaato ii geysto ma ka qabtaa maxaan sameeyaa marka arrintaas ayaa runtii aada waxaa rabaa inaan xasuusiyo sheekadan hadda ka hor ayay dhacday Soomaaliya ayay ka dhacday sheekadaas waxay ahayd ayaan la dhihi jiray xasuustiin qof hadduu ku soo waco waad dhimanaysaa nambarada noocaas ay ku soo wacaan ilaa dhowr lambar oo kala duwan waad dhimanaysaa waxaasna wax suurtagal ma ahan waxaad ogaataan tiknoolajiyada maanta la joogo dhibaato kala duwan lagu geysan karaa laakiin in lagu dilo oo adiga telefoonka qof ka qabato markiiba aad dhimatid sheekadaas waa sheeko khiyaali ah waana sheeko aan macquul ahayn waana sheeko aan sal iyo raad midna lahayn marka waxaan rajeynayaa saaxiibayaal waxyaabaha noocaas ah mar kale inaan waqti la kaga luminin aad baad u mahadsantihiin saaxiibada soo weydiinaya jawaabtiin waa taas saaxiibada kale is weydiin kara su'aashaasi jawaabteedana waa taas marka waxaan rajeynayaa insha Allah in laga wada faa'iideysan doono saaxiibada la sii share garay muuqaalkan like saar si uu saaxiibada u gaaro aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal mowduucda badan aan ka hadalno haddii aadan la soconin waxaan ka hadalnaa arrimaha tiknoolajiyada horumarinta nafta iyo sidoo kale ganacsiyada online-ka haddii mowduucaas aad danaynaysid waxaan kugu casuumi doonaa inaad ku soo biirtid YouTube-keena oo aad subscribe saaratid kadibna gambaleelka aad furtid sidoo kale Facebook-geena ha ilaawin haddii aad xiisinayso mowduucda noocan ah inaad follow saaratid kadibna favorite aad ka dhigatid si mar kasta aan muuqaal soo gelino oo ku soo gaaro Allah idin sharfo saaxiibadeedu waa idin jeclahay aad baan idin salaamayaa meel kasta aad joogtaan salaan ka shay laabta ah gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo macquul ma tahay adiga inaad arrintan la kulantay ama aad ka walwashay ama xataa aad isku dayday macluumaad inaad arrintan ka ogaatid macquul ma tahay adiga inaad yacni isweydiinaysay telefoonkaas hadduu ku soo maxaa samayn doontaa walwal noocaas ma ku soo gaaray sidoo kale codkaasi ma ku soo gaaray oo horey mu dhageysatay haddii aad horey u dhageysatayna qaybta commentiga ula wadaag waxaan rabaa insha Allah inaan halkaasi isku aragno oo ku sheekaysano waa idin salaamayaa saaxiibayaal nabadgelyo intaan markale kulmayno waa walaalkeen Cabdi Shukuur oo idin leh nabadgelyo